dad badan baa isoo wacay moogtaa saaxiibana moogta siyaasadda kululaasho moogta Abdullahi Maxamed Nuur baa laga hadlayaa ninkii la yiraahdo 30 milyan haysta moogta waxa idin sheegaya daahir cali soo daahirka shalay maaha Abdullahi Maxamed Nuur si kastoo wax uga tirsanayo waa nin walkaya waa nin ragoo maalintii hil looga baado hil gala ha ku kadsoominina waxyaabaha socda aniga hadda Abdullahi saysan adal rabaa ina iska celiso afkaada ku hadasho Abdullahi iska celi aniga laakiin nin ma ahi loo diray nin weelkiisa maanta aniga waxaan ahaa maanta ninkii hadday xas sheekh iyo Abdullahi isqabtaan wax kala dhihi lahaa hal runna waa idin sheegaya daahirka shalay daahirka maanta ma aha wixii xaqiiqa oo reality waa ka hadlaya laakiin haddaad maanta isiiso wax kasta oo hantiya Abdullahi Maxamed Nuur hal kelma dhihi maayo xun hal kelma oo xun dhihi maayo mana iga istaahilaba wax kasta xitaa aan kala tirsanayno ayaa hore dhul xogay meesha oo waxaan ka tirsanay wax ma taqaanaa meesha la warshada dhiig iyo siliga wax kasta oo naga dhaxeeyahay Abdullahi oo dagaal oo ku jiro oo ishayaan oo xashiq ishayaan ina ani maanta dhabar jibiyo suurtageli meesana xasan sheekh oo ilaalinay 4 sanadood aan shibigu ahaa oo dhahay saciidni ishayaan islaha oo kale yaan asagana u xurmeynaya mana ihiba noocaas hadda ma ihi meelaha sadda iga raadinina meelaha hadda ma joogo Abdullahi Maxamed Nuur ani haddii sharaf haweenimo ay jirto sharaf hiraabnimo ay jirto ninka ganacsigiisa loo fasaxo shaqadiisa iyo hoteelkiisa wixii ka haleesna loo hagaajiyo dadku waa wada dhasheen waxa waa taariikh